السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنه وناكسن أصحابتنا ميل كستوات جوكتان كسو دوادا برنامج كيني عيارها waxaanu ku eegi doonaa qodobo dhowr ah oo ku saabsan dunida kubadda cagta. haddii aad nagu cusub tahay daawada fadlan subscribe inoo saar siina sheer garay saaxiibadiinana la wadaaga dhammaantiinba. aanu ku bilownay kooxda Chelsea ayaa lagu soo waramayaa inay dalab rasmi ah oo dhan 40 milyan ka gudbisay saxiixa daafaca dhexe ee kooxda PSG Presnel Kimpembe. Chelsea ayaa la soo saxiixatay haatan bixida Koulibaly kaas oo ay kala soo wareegtay kooxda Napoli kana saxiixatay heshiis 4 sano ah. si kastaba ha ahaatee Thomas Tuchel ayaa wali doonaya xidig kale oo difaac ah maadaama uu laba daafac waayay kuwaas oo kala ah Andreas Christensen iyo Antonio Rudiger. haatan Chelsea ayaa la sheegayaa inay dalab 40 milyan oo euro ka gudbisay saxiixa kooxda PSG ee Presnel Kimpembe. tababara Thomas Tuchel ayaa shakhsiga dalbaday in ay Chelsea u dhaqaaqdo saxiixa reer Faransiya maadaama uu xiriir fiican la leeyahay xidiga. Thomas Tuchel iyo Presnel Kimpembe ayaa ka soo wada shaqeeyay kooxda PSG markii uu tababaraha Chelsea hogaaminayay kooxda reer Faransiya. isla dhinaca kale Paul Dybala ayaa si buuxda u ogolaaday inuu u dhaqaaqo AS Roma isagoo uga biiray kooxda qaab xor ah sida uu xaqiijiyay Fabrizio Romano. weeraryahanka reer Argentina ayaa aqbalay heshiis 3 sano oo uu ku qaadanayo mushaar dhan 6 milyan oo pound sanadkii. Paul Dybala ayaa hadda u safray caasimadda Itaaliya si uu tijaabada caafimaad ugu maro kooxda AS Roma una dhammaystiro heshiiskiisa. 29 jirkan ayaa xor ahaa tan iyo markii uu ka tagay Juventus dhamaadkii xilli ciyaareedkii hore, laakiin waxa uu go'aansaday inuu sii joogo Itaaliya si uu u sii wato xirfadiisa ciyaareed. Paul Dybala ayaa Juventus u saftay 293 kulan isagoo uu dhaliyay 115 gool. isla sidoo kale Manchester City ayaa laga yaabaa inay ka shalayso iibinta xidiga Gabriel Jesus oo ay ka iibisay Arsenal iyo Raheem Sterling oo ay ka iibisay Chelsea sida uu qabo weeraryahankii hore ee Sergio Aguero. Gabriel Jesus oo ahaa bartilmaameed koowaad ee Arteta ayaa Arsenal uga biiray lacag dhan 45 milyan oo euro isagoo qalinka ku duway heshiis 5 sano ah. Raheem Sterling ayaa sidoo kale 45 milyan oo euro uga biiray kooxda Chelsea isagoo isna qalinka ku duway heshiis waqti fog ah. Sergio Aguero ayaa labada xidigba kula ciyaaray qalcadda Etihad intii uu joogay kooxda, waxaana uu sheegay in ay Manchester City sameysay khalad markii ay fasaxday labadan xidig. isla sidoo kale kooxda Arsenal ayaa dhamaystirtay saxiixa kooxda Manchester City ee Alexander Zinchenko sida ay sheegayaan wararku. Manchester City iyo Arsenal ayaa heshiis buuxa ka gaaray saxiixa Alexander Zinchenko iyadoo Arsenal ka bixin doonto saxiixa lacag dhan 30 milyan oo euro iyo 2 milyan oo guna. Arsenal ayaa sidoo kale heshiis shakhsi ah la gaartay xidiga Alexander Zinchenko kaas oo ogolaaday inuu ku biiro kooxda ka ciyaarta Emirates. xidiga Alexander Zinchenko ayaa kooxda Arsenal u saxiixi doona heshiis 4 sano ah oo uu ku joogi doono kooxda uu hogaamiyo Mikel Arteta. xidiga reer Ukraine ayaa haatan isku diyaarinaya inuu tijaabada caafimaad u maro kooxda Arsenal saacadaha soo socda si uu u dhammaystiro heshiiskiisa. dhinaca kale kooxda Atletico Madrid ayaa beenisay warar kale la xiriirinaya xidiga Cristiano Ronaldo kaas oo la sheegay in ay ku dhowdahay saxiixiisa. kooxda Atletico Madrid ayaa sheegtay inaynu wax xiiso u qabin saxiixa Manchester United ee Cristiano Ronaldo. xidiga 17 jirkan ayaa doonaya inuu ku biiro kooxda Atletico Madrid si uu uga ciyaaro tartanka Champions League xilli ciyaareedka cusub. xidiga Cristiano Ronaldo ayaa doonaya inuu isato Manchester United suuqa xagaagan kadib markii ay kooxdu ka hartay tartanka Champions League, laakiin Atletico Madrid ayaa beenisay in aynu wax xiiso u weyn saxiixa Cristiano Ronaldo maadaama ayna awood u leeyahay inay bixiso mushaarkiisa aadka u badan. intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullah.